kuwa igu daran waxay tahay qaarkood waxay odhanayaan meeshaan soo istaagnaba inan yar baa nagaga soo horreysee raggii maxaa ku dhacaye meesha looga ururiyey nin ii doonto talaaniga shaqeeye ma qaban kartid inaan shaqeeye ma qaban karto nin hala ii doono waana dhacdo toos iigu dhacday aniga inay beeshno isoo maray ay diideen inay gabadh wax service u qabato ay u baahan yihiin inaynan u qabto dhibkamaan soo qaadin waan iska dhaafay waana kusii socday hawshaydii lagu soo cusumay hablo dhalinyaro ah isla markaana ee lagaga waramayay aid marriage oo loo asteeyay maalinta haweenaha adduunka waxay la taagan samsam oo ah dictorad sidoo kale nursing soo dhawow samsamey ku soo dhawow marka ugu horeysa careedi walaba maadsantahay waan dhawahay inkasta bahda caafimaadka haddaan dadku dhakhtarna wada yaqaanaan anigu waxaan ahay xirfadle nursing iyo shaybaadh caawa fursadan maalinta haweenka adduunka waxaan kaga faa'iidaysanaa inaan ku dhiirigelino haweenka inta waxbaratay ee fadhida iyo inta waxbaranaysa ee kusoo jirta hayaankiiba waxaan leeyahay soo dhawaada annaga idinka soo horeyna caqabado way jiraan laakiinse caqabadahana xal looma waayo waxaad ii sheegtaa qofku marka uu fakalka caafimaadka baranayo mid uu takhasuskiisa siiya sida caadiga adigu labaad isku qaadatay maxaa kuu kalifa arrinta hobigaygu wuxuu ahaa marka hore inaan dhakhtar inaan noqdo markaan gudaha waddankeena joogo waxay igu qaadanaysay waqti dheer dabadeetana waxay la sii qurux badnaaday haddana markii aan yaraa dhakhtar baan ku hamiyeyey laakiin markii aan soo weynaaday ee aan wax kala gartay waxaa ii soo kala baxay shaybaadhka laftiisu inuu yahay mashiinka dhakhtarku ka dhaqaaqo dabadeetana shaybaadhka waxaan ka dhigtay xirfadayda koowaad xirfadayda labaad waxaan ka dhigtay nersinka oo nersingna waan bartay waanan ku shaqeeyey haddii aad mid baratidna xirfadaha caafimaadku mostil ma kala maarmaan waxay ku fiican yihiin inaad wixiiba aqoon u leedahay waayo soo si dadku dhakhtarku ugu wada garanayaan waa inaad u qaban kartid adeegyo kala duwan qofkii kaaga baahday caafimaadka marka shaybaadhka waxaan u doorbiday inuu yahay barta ugu horeysa ee caafimaadku ka dhaqaaqo waxaan ku weydiinayaa sidee kugu suurto gashay laba fakalt oo waaweyn oo caafimaada inaad ku wada baratid haddana aad ku wada shaqaysid inaan wada barto waxaa ii sahlay dadaalkii aan sameeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin iyo taageero badan oo aan ka helay qoyskayga oo maadaama la waxbarasho ku jiray aan la iiga baahnayn daruuri ahayn inaan guriga hawl ka qabto oo kale alxamdulilah rabbilcaalamiin soo bixistii aan kasoo baxayna weli aniga oo sii baranaya xirfadayda shaybaadhka ayaan ku shaqaynayay nersinka kadib markii aan dhammaystay xirfadayda shaybaadhka waxaan ka wareegay shaqadii nersinka waxaanan u go-ay shaqada shaybaadhka caqabado badan baa jiro oo aad kala kulantay intaad ku dhex jirtay shaqadan waxaad ii sheegtaa arrintii ugu la yaabka badnayd ead kala kulantay intaad shaqadan qabanaysay tay doonta ahaatee horta qof waagii beryaba u shaqo taga bulsho kala duwan waxyaalaha lagala kulmaya way fara badan yihiin in wanaagsan waan kala kulannaa in xun oo la yaab lehna waan kala kulannaa kuwa igu daran waxay tahay qaarkood waxay odhanayaan meeshaan soo istaagnaba inan yar baa nagaga soo horreysee raggii maxaa ku dhacaye meesha looga ururiyey nin ii doonto talaaniga shaqeeye ma qaban kartid inaan shaqeeye ma qaban karto nin hala ii doono waana dhacdo toos iigu dhacday aniga inay beeshno isoo maray ay diideen inay gabadh wax service u qabato ay u baahan yihiin inaynan u qabto dhibkamaan soo qaadin waan iska dhaafay waana kusii socday hawshaydii alxamdulilah rabbilcaalamiin marka tan ka xasuustay ugu dambeysay taasay ahayd laakiin wax badan 8 sannadood oo aan ku jiray fiilka caafimaadka ku dhex jiray waxyaalo dhacdooyin badan oo kala duwan way soo mareen ugu dambeyn fariinta ugu dambeysa u diriso haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka jecel inay isku bartaan laba fakal oo caafimaad sidaadoo kale waxaan leeyahay waad samayn kartaan waa qof iyo dadaalkii waana dadaali kartaan waxaanan aaminsanahay inay dumarku ka activesan yihiin ragga because waxyaalo aynu inagu isku qaban karno laba waxaynu inagu wadaajin karno ma wadaajin karaan raggu marka haweenku wax badan bay qaban karaan welibana waxa aan imika ku guda jiraa oo aan semesterkii ugu dambeeyay kaga jiraa kulliyadda social work jaamacadda Hargeysa oo iyadana aan degree ka wado taasna waxaan isleeyahay xirfadii saddexaad ka dhig marka adigoo shaqaynaya waxbaad baran kartaa laba waxbarashanaad isku baran kartaa